Nabadgelyo korkiina ha ahaato. Ku soo dhawaada goor walba, xilli walba, iyo weliba waqti walba barashada xisaabta. Magacaygu waa Shini Gestir. Caawa videogan waxaan ku baranaynaa interior angles of a polygons, xagalo gudeed geesoolayaal. Sida halkan ka aragtaan, marka la raadinayo xagalo gudeedka geesoolayaasha, waxaa jirta laba formula ama laba qaacido oo la raaco. Qaacidada koowaad ee dhahaysa sum of interior angles, wadarta guud ee xagalo gudeedka waxaa lagu helaa n laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180. Each angle, halkii xagalna waxaa lagu helaa n laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 oo loo qaybiyey n. Haddaba n waxay noogu taagan tahay number of sides, tirada dhinacyada. Daawade, intaanan u gudagelin tusaalayaasheena, waxaan rabaa inaan ka hadlo hal arrin oo muhiim ah. Arrintaas waxay tahay dhammaan shaxanadan halkan nooga muuqda waxaa luqadda Englishka lagu yiraahdaa polygons. Af Soomaalina waxaa lagu yiraahdaa geesoole. Dhammaantood waxay leeyihiin xaglo isku cabir ah iyo dhinacyo isku cabir ah. Tusaale ahaan, shaxankeena 3 xagal wuxuu leeyahay 3 xaglood oo isku cabir ah iyo 3 dhinac oo isku cabir ah. 4 geesoole wuxuu leeyahay 4 xaglood oo isku cabir ah iyo 4 dhinac oo isku cabir ah. 5 geesle wuxuu leeyahay 5 dhinac oo isku cabir ah iyo 5 xaglood oo isku cabir ah. 6 geesle sidoo kale wuxuu leeyahay 6 dhinac oo isku cabir ah iyo 5 xaglood oo isku cabir ah. 7 geesle wuxuu leeyahay sidoo kale 7 dhinac oo isku cabir ah iyo 7 xaglood oo isku cabir ah. Geesoolaha leh dhinacyo isku cabir ah iyo xaglo isku cabir ah waxaa luqadeena hooyo lagu yiraahdaa geesoole qaabsan. Luqadda Englishkana waxaa lagu yiraahdaa regular polygons. Arrintaasna waa muhiim inaan isla fahanno. Haddaba aan u gudagalno tusaalaheena koowaad inagoo raadinayna wadarta guud ee 3 xagalka. Sum of interior angles oo usoo gaabinay s waxaa lagu helaa baan dhahnay number of sides laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180. Sum of interior angles waxaa lagu helaa number of sides waa imisa. 3 xagalku wuxuu leeyahay baan dhahnay 3 dhinac. Haye 3 laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180. Sum of interior angles waxay la mid tahay 3 waxaad ka jartaa 2 waa imisa. Waa 1. 1 lagu dhuftay 180. Marka sum of interior angles waxay la mid tahay 1 lagu dhuftay 180. 1 lagu dhuftay 180 na waxaan ognahay inay tahay 180. Wadarta guud ee dhammaan xaglaha 3 xagalka waa 180 degree. Saas ayaa waxaa loo helaa wadarta guud ee xaglaha. Haddii aad rabtid inaan soo helno each angle, hal xagal oo keliya ah, sidoo kale waxay leedahay formula la isticmaalo. Each angle waxaa lagu helaa baan dhahnay number of sides laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 oo loo qaybiyey number of sides. Waa hagaag. Haddaba waxaan dhahaynaa each angle waxay la mid tahay number of sides waa imisa. Waa 3. 3 dhinac ayuu leeyahay 3 xagalku oo laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 oo loo qaybiyey haddana number of sides. Imisa dhinac ayuu leeyahay 3 dhinac.
وهاجاج هذا 3 laga jar 2 waa imisa waa 1 1 lagu dhuftay 180 oo loo qaybiyey 3 1 lagu dhuftay 180 waa imisa waxaan ognahay inay tahay 180kii oo loo qaybiyey haddana 3 3dan waxa weeyaan waa number of sides waxay la mid tahay marka 180 loo qaybiyey 3 waa imisa waxaan ognahay in la mid tahay 60 waa 60 degree halkii xagalba taasina waa halkii xagal qaabka loo soo helayay waana waddo dheer runtii laakiin waxaad samayn kartaa oo jirta waddo aad iyo aad u sahlan markii aad soo heshid 180ka oo ah wadarta guud ee xagasha waxaad u qaybisaa marka waxaad dhihi kartaa each angle waxay la mid tahay 180 oo ah wadarta guud oo loo qaybiyey 1 2 3 3 xaglood waa imisa 3 loo qayb 180 waa 60 degree qaabkaasna waa qaab fudud oo aan ku shaqayn doono insha Allah taala tusaalaha soo socda maadaama uu qaabkan dheer yahay waqtiguna iska yahay ciriiri aan u gudubno tusaalaheena labaad anoo kaga shaqaynayna afar geesle waxaan ka bilaabaynaa sum of interior angles waxaa lagu helaa baan dhahaynaa number of sides laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 sum of interior angles waxay la mid tahay number of sides afar geesoole imse dhinac ayuu leeyahay 1 2 3 4 afar dhinac ayuu leeyahay waxaa dhihi marka 4 laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 sum of interior angles waxay la mid tahay 4 ka jar 2 waxaan ognahay inay tahay 2 oo lagu dhuftay 180 marka sum of interior angles waxay la mid tahay 2 lagu dhuftay 180 waa imisa waa 360 degree wadarta guud ee afar geesoole xaglihiisu waa 360 degree haddii aan rabo inaan soo helo hal xagal oo ka mid ah xaglaha afar geesoole waxaan samayn karaa waxaan raaci karaa qaacidadan sidii aan usoo sameynay saddex xagalka waxaan kaloo samayn karaa haddii aan soo helay wadartii guud oo ah 360 degree waxaan u qaybinayaa 1 2 3 4 afarta xaglood waxay noo soo baxaysaa 90 degree halkii xagalna waa 90 degree saasna waxaan ku saari karnaa each angle xagal walba haddaba aan u gudubno shaxankeena saddexaad oo ah 5 geesle waxaan dhahaynaa sum of interior angles waxaa lagu helaa number of sides laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 sum of interior angles waxaa lagu helaa number of sides laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 soo maaha imse dhinac ayuu leeyahay 5 geesle wuxuu leeyahay 5 dhinac oo laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 sum of interior angles waxay la mid tahay 5 ka jar 2 waa 3 haye waxaad ku dhufataa 180 haye sum of interior angles of pentagon wuxuu la mid yahay 3 lagu dhuftay 180 3 lagu dhuftay 180 3 lagu dhuftay 180 waa 540 degree 540 degree pentagon ama 5 geesle xaglihiisa dhammaantood markii la isku daro waa 540 degree haddaba halkii xagal waa imisa waxaan dhahaynaa halkii xagal each angle waxay la mid tahay 540 degree oo ah wadarta xaglaha oo loo qaybiyey tirada xaglaha 1 2 3 4 5 waa 5 xaglood waxaad u qaybisaa wadarta waxaa kuu soo baxaysa 108 degree
aan hubino inagoo isticmaalna calculatorkeena 540 loo qaybiyey 5 xaglood waa 108 degree. saasna waxaa kusoo saari kartaa halka xagal. qaabka kalena waxaa kusoo saari kartaa wadarta guud ee xaglaha. aan u gudubno haddaba tusaalaheena afaraad iyo shaxankeena afaraad. 6 gees leh anagoo raadinayna wadarta guud ee xaglaha. waxaan dhahnay waxaa lagu helaa sum of interior angles waxaa lagu helaa number of sides laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180. sum of interior angles waxay la mid tahay number of sides waa imisa waa 6 laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180. sum of interior angles waxay la mid tahay 6 ka jar 2 waa 4 waxaa ku dhufataa 180. 4 lagu dhuftay 180 waxay noo soo baxday 720 degree. sum of interior angles waxay la mid tahay 720 degree. 5 geesoodana xaglaha dhammaantood wadartoodu waa 720 degree. haddii aan rabo inaan soo helo each angle waxaan dhahayaa 720 degree loo qaybiyey waa imse xaglood waa 6 xaglood. 720 degree loo qaybiyey 6 720 halkan noogu jirtaa waxaad u qaybisaa 6 waa 120 waxay la mid tahay 120 degree. each angle waa 120 degree. aan u gudubno shaxankeena ugu dambeeyey oo ah 7 gees leh inagoo raadinayna sum of interior angles oo lagu helo number of sides laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180. sum of interior angles waxay la mid tahay number of sides waa 7 laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180. sum of interior angles waxay la mid tahay 7 ka jar 2 waa 5 marka waxaa ku dhufataa 180. marka sum of interior angles waxay la mid tahay 5 lagu dhuftay 180 waa 900 oo degree. 7 geesena wadarta guud ee xagladiisu waa 900 oo degree. haddaba aan soo helno hal xagal oo ka mid ah waxaan ku heli karnaa ma dhahnay each angle waxaa lagu heli karaa wadarta guud oo loo qaybiyey tirada xaglaha. wadarta guud oo loo qaybiyey tirada xaglaha. xagluhuna waa 7 xaglood. 900 marka waxaa u qaybisaa 7 900 halkan bay noogu jirtaa waxaad u qaybisaa 7 waxaa noo soo hadhay 128 waxay noo soo baxday 128 degree. saasna waxaad ku samayn kartaa markaad soo helaysid each angle waxaa lagu heli karaa 2 qaab ama 2 wado. inaad raacdid formulaga iyo inaad u qaybisid tirada xaglaha wadarta guud ee xaglayaasha. daawadayaal intaan video lamid ah ku kulmi doono waxaan idin sii dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.